soo marka adiga hadda isku kalsoontaa waxa waay dad badan kugu kalsoonaan doono sababtoo kalsoonida adiga qabtid haday arkaan way ka dabharayaan fahmaysaa laakiin qof aan isku kalsooneen oo asaga dhanba yani ama wajigiisa qarinayo ama oraahdiisa qarinayo oo hadli karin ama wajigiisa wala xishoonayo de macquul ma ahan marka hore waa inaad nafsadaada yani aan ku kalsoonatid tan koowaad waa kalsoonidu waa shay muhiim ah waa inaad meel kasta istaagi kartid si kalsooni leh adoon xishoonaynin cidna ka baqaynin fahmaysaa soo taas mid waaye talabaad oo ah geesinimo maxay tahay anaga kulli jihaad kuma jirno laakiin nolosha la jihaadona ma fahmaysin geesinimo lagaga baahan yahay sababtoo ay hadaa cabsanaysid hadaa wax walba ka cabsanaysid kabar yani horumar ma sameynaysid sida hadoo kale waxa u baahan tahay kale in YouTube furatid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر بهذا يوتيوب channel كيجا مقعيجنا هني واي يوتيوب channel كداون السنة وهني official فضلا دان وعصب تهاي أو مركي كوجو رئيس تهاي أو channel كيج صوب وقته حنقولي هاي سودو سبسكرايب كنوصار لايك تنهنا بقيلين كومنت رأيجا جنورب dadka cusub oo igu soo raac TikTok waxaan leeyahay dalba qortooy baatiine soo dhawaada ma fahamteen madaxa ay saarantiin madaxa buu والله دد ما شاء الله باتينهم بقرينا كودها مركز دي وحا إنا ده ما أخانيه سود هذا ما فهمتين دي قبل واي مركز دي واكا سود هذا نلاقي يوتيوب channel كي كسود هذا دد كي هر يقول لك شوفين وحلاي هذا وما تسنتين إذا كان دلقات كين هذا وبدين هني يوم مركز إسكبحيس مركز ربطنا صور العبريس بني كحرنتين مركز حنلاقي هذا وما تسنتين إذا كان دد كي هر يقول لك شوفين dadka cusubna soo dhaweynaa dadka ugu soo biir doonaan dabcan waa soo dhaweynaya soo dhawaada gabadhiin le waa ma fahamteen YouTube-keeda waxa way boorka laga kiciyo hal share garay meelaha lagu turturo warday waxa weey gabadhiina de waa fanaanad Soomaalideen fanaanada raabka maxaa aniga qalday iyada la isku sharaxayso qoftaan marka asxaabta iyo hadal igu daalin maanta maxaa wada oo video ay oo ka hadlay rabaa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo video dhiirigelin ahaan way ogtihiin TikTok dadka jooga oo iiga soo raacay ogyihiin inuu reecsire waa war la daldashaa intana warka leen keenayo ogtihiin aniga waxa waaye waa ogtihiin liigama baran yani wax xun laakiin mar walba yani wax faa'iido leh yani mar walba dadka la wadaaga waxa doonaan ha noqdaa xataa TikTok markaan joogo si nidaam la baan ku jooga ma fahanti dadka qofba si uu ku jooga TikTok waa iska ogtihiin waa iska wajiye badan yahay لكن ما أنت محايني وذا ما أنت حارة أنا كهذا فيديو اللي يرد أنا قصية أنا حتى قصية قف كست قصية إن سو لرجلين النوع الدمانتي نبى ما فهمت قف كستو ودي ربوا إنه يعني وحياة بدن كجد بو أيو لرجلين وياهي أنا طبعا لرجلين أيو وياهي إن سو وحاواي سدح وحيابود إنا يعني أن كجد بنو أياف يعني سدح وحيابود وحاواي سدح ذا وحيابود وحاويان كو إنا إسكو كالسوناتين نمبر لaba إنا geesinimo muujisid number 3 إنا ma baratid soo marka waxa rabaa saddexdan waxyaabood ina ugu gudubno waxyaabo badan oo anaga nafsadeena ku saabsan sababtoo ay kalsoonidu waa wax loo baahan yahay maya waa wax loo baahan yahay geesinimona waa wax loo baahan yahay waa hadaartad ina hore u socotid كو waxa ku bilaabinay kalsoonida maxay tahay kalsoonida naftaada yani naftaada ku kalsoonta horta mid ugu horeyso مكو يعني مأمسنتها إلى أدو حسابين كرتيد إنا وحبدلي كرتيد إنا وحكستو أديك نفتا هذا كسبسن أقبسن كرتيد مسقفة كتير سنتها وحده سقف هي الباني تاجر سقف هي الباي وتا هو يدي باينو لا به باينو والد كدبعا ووالد كوكسو كوريان دبعا حلقة باينا خانجرتاي مركا دي نورشان أنت كدي منو حلقة باينو والد كدنتان والد كإنه يعني بوسك يكون جوجين كتجان وحول باي ما كرا مركا أديك مسكو كرسون توقف يعني حقي الأحسن كرو متى هاي مسوا حتى يقف نفسدي أن كوكر صونين أمر والب يعني يقف يعني وحكسوجا أما قف إنه وحقبته وحكسو تاسو إنك جذبته نفط هذا إنك كوكر صوناتيد وإنا أديك النفط هذا هدي أنا كوكر صونان حتى قف كستو حكومة قبكر إلهي ومنقضه نينك أدونك وجود تاجر سن حتى أديك وحمكو قبكر نينك أدونك وجود ترس وحمكو قبكر سبت رب عقدتك وجود تقفا كود دوار فيل يعني قفا كود دوار فيل سنتهاي وكود دوار جرتان فاهمسا marka kalsoonidu waa shay qaaliya oo kalsoonidu waa tan dadka ku soo hor istaajis sida anoo kale hadda aniga kalsooniya meesha la soo istaagay qof kasta haduu idho xataa naa fool xunta naasana taana inta ka dhacdana waa hadal badan taana maxay ahayd ma yeelay sababtoo isku kalsoona waxaan ogahay inaan waxa ay sheegayaan waxba iga qosayni sababtoo ana isku kalsoona ana isku faraxsan wax walba aan sheegay ana isku qanacsan
soo marka adiga hadda isku kalsoontaa waxaa waaye dad badan kugu kalsoonaan doono sababtoo kalsoonida adiga qabtid hadday arkaan way ka daba harayaan fahmaysaa laakiin qof aan isku kalsooneyn oo asaga dhanba yani ama wejigiisa qarinayo ama oraahdiisa qarinayo oo hadli karin ama wejigiisa la xishoonayo de macquul ma ahan marka hore waa inaad nafsadaada yani aan ku kalsoonaatid tan koowaad waa kalsoonida waa shay muhiim ah waa inaad meel kasta istaagi kartid si kalsooni leh adoona xishooneynin cidna ka baqaynin fahmaysaa soo taas mid waaye talabaad oo ah geesinimo maxay tahay anaga kulli jihaad kuma jirno laakiin nolosha la jihaadona ma fahmaysin geesinimo lagaga baahan yahay sababtoo hadaa cabsanaysid hadaa wax walba ka cabsanaysid kabar يعني هرمر مسميني سيدا هذا كله وحاب بهانته وكله إنه يوتيوب فرتيد يوتيوب كي مركا واقع بسنة وحال هذا يوتيوب يما القداوم ويا أما يعني وحكوا عن أما يعني دتك كسب بخون ويا سو مركا أما سال نقول لا وحياة بدل أسكر دعني سا قف كي مركا ما وح مسمين كرو تنكلته مركا ربتيد وكلته إنا وح برتيد وكلته إنا سكول جامعة هيبل برتيد أما إنا كوش في عم برتيد أما كلته ربتيد إنا أو دكتور نقطيد أما إنا ربتيد إنا إنجنير نقطيد waxyaabo badan ay u baahan tahay inaan yani geesinimo u muujisid sababtoo yani carqaladooyin badan la kulmaysaa laakiin haddii aad geesi tahay waa ka gudbaysaa laakiin haddaa cabsatid waxay noqonaysaa inaad soo laabatid marka mar walba waxaa lagaaga baahan yahay inaad yani geesinimo muujisid meel walbana aad geesinimo ku tagtid adiga oona dadka baqaynin fahmaysaa ilaahay maahane qof bilaadan adoona ka baqaynin inaad soo istaagtid dadka hadalkoodana aadan dhig jalaq u siinin qofka wuxuu rabo ku dhigi karaa marka inta soo fadhiisatid meesha rabtaa noqotay ama YouTube ama TikTok ama meel ama Facebook adigu habigaaga waa soo fadhiisatay waxay ku leeyihiin de waxa tahay malahan iska tag yani baxa lagu leeyahay waa lagu niyad jibinaya laakiin inaan niyad jibtid ma hadaa niyad jibtid waa laga guuleystay Soomaa inaad isku kalsoonaatid aadna niyad jibina ku fiican si aad hore u socotid ma fahmaysaa hadii kale hore uma socon kartid waxa noqonaysaa qof daciif oo gadaal u laabto ma fahmaysaa marka geesinimadana taasa muhiimka ah sababtoo hadii hal eray lagu dhaho hadii wax lagu dhaho aad cabsotid ka bar qof haduu yani ku dhaho waxaan ismeyn kartid ama waxaan yani dadka qatarsana qaban waayay dadkaas nafay leeyihiin gooni waay waxooda adigana nafalada gooni waay waxaada waa qabsan kartaa wax walba ku niyad jabina ku dhiilahay yani geesinimo muuji qof wuxuu ku dhahay ha uga aamusin ma fahamtay waa ku salaamaday ani hani alidaani qof haduu dhaho waxaan sameyn kartaa ama saan waay maxaa kaaga shaqo jarle ma dhaabane yaa ku dirsada waa dadkaana ka yaaba meedeen sharma boy muxuu dhahay horta Soomaalida muranka la ku nacay maxaa ka galay yaa sheekada aheed waay marka maxaa ka galaa bal dhaha waro loo sii socdaa ma fahamtay qof rabo inuu adiga la laxshoomo oo ku niyad jibiyana ma loo joojiyo ma sababtan oo labaad marka geesinimo loo baahan yahay waa inaad geesi ahaataa ma fahamtay dhalinyarada la hadlaya ma fahmayso oo rabo hami in leh oo ama inay wax bartaan ama inay YouTube ku soo biiraan ama sabarka adaa meel iska soo saari karo marka muhiimadu waxa waa in aad meel iska soo saartid in adiga wax qabsatid in aadan qof ku tiirsanaan qof bili aadan in aadan ku tiirsanaan ma fahmaysaa oo adiga dantaada u soo kacdid marka dambe dadka yani adeeba kugu tashanayaan waxay leeyihiin qofka ma sha Allah qof waxa waay dhibaatadaas soo maray ka gudbi ma fahmaysaa adaaba lagu faanayaan ma fahmaysaa marka waa inay ka gudubtaa wax kasto waa ka gudbi kartaa marka laakiin geesinimo iyo adeega lagaga baahan yahay insha Allah talabaataas waa ta saddexaad maxaa waa ta saddexaadna waxa waay maya maxaa waa jawaab dhameystiran maya dabcan sababtoo waa diidmo waa ina wax diidi kartid qof kasta wuxuu ku dhow inaadan qaadanin ma fahmaysaa sababtoo maya waxa waay jawaab buuxda sababtoo marka wax diidaysid wax kasta ku hagaagaya laakiin hadaa hay raac tahay oo qofka ku dhaho kaalay waxaan sameeynaa kaalay waxaan inta geey kaalay inta yeel kaalay يعني قف يعني إنه ما أنت نسك كاوضته وحدا أدرالك إهين أما آذن ربين وقصبه وأذيك إنه يحيى أسكس بيسي قف كان كحشونا قف كان محاوى ما يمديكري قف كان ساموي وديكرتا قف كستو أما يديكرتا قف كربا هذا حتى والد كان ما يوديكرتا أيضا ساعة سينما إهين رنت أو شيء كرتا مفهموسا والدك وكلات مرمرك قاركود وحاجرتو إنه يكون دهان يعني وحبرشو أذي ربين إنه يكون قصبان لعل وكلو يحكوا دهان دكتور وكلات برو كلها أذينا وحاجة عشان إنه إنجنيرين برتد إنجنير إنه نقطة ربطة أيجن دكتور يربان مركو والدكي ما يد مدي كرتد لكن وكذا دعنيسا وحديسا هو يعني جو حن مربي زوجته نيد ومهاي
qofka wuxuusan niyad u hayninna ma baran karo waa ogtihiin sababtoo qofku waa inuu niyad u haya marka hooyooyinka kale way sameeyaan badanaa ilmaha inay ku qasbaan wax aysan ayga rabin lacag dantaada ka fakarooyaan ay waxay jecel yihiin la kugu qasbayaan laakiin waxa fiican ilmaha inuu wax ayga rabaan ay bartaan ma fahmaysaa si ay hadhowda niyad ugu yeeshaan ay u baahdaan ay wixii ugu dadaalaan ma fahmaysaa qofka marka wuxuu rabo markuu sameynayo iyo wax lagu qasbo markuu sameynayo way kala duwan yihiin saa darteed baan waxaan u leeyahay yaana wax lagugu qasbin waa inaan maya dhahdaa maya waa inaad barataa si adiga waxa rabtid u samaysatid ma fahmaysaa marka maya waa jawaab buuxda waa ogtiin way dhameystiran tahay marka cidana ha uga xishoonino yacni haddii qofka maya ma dhihi karo waa dhihi kartaa maya ma fahantay waxa adig ugu soconaynin ma ka yeelaysid waxaa leedahay maya waxaan aniga uma soconayn wax kale noo keen ma fahantay laakiin haddii aad hayaraac noqotid wareer waaye ma fahamtay waxaa qof kasta uu iska kaa wadan qof kasta wuxuu rabo kugu shubi qof kasta meeshuu rabo kugu wadanaa bari iyo koonfur lagu kala jeedinaa ma fahamtay marka waxaan igula talinayaa inaad maya baratiin aniga waxaan rabin laguma qasbi karo haddii aad tahay qofka rabtay ahaa waxa aan rabay iguma qasbi kartid waxa aan rabana igama marka muhiimada dhan waxa waay amaanta dhan saddexdaas waxyaabo nigu sharaxay ina adiga waxa rabtid samaystid ina wax sameyn kartid ina wax qabsan kartid inaadan qof ku tiirsanaan wiliga ay allaha aad naftaada kaliya maareysid oo isku filnaatid ma fahmaysaa bili aadan waxa la dhahay baryo badan iyo bugto badanba waa la isku nacaan fahmaysaa marka bili aadanko dhan waxay tahay marka adiga isku filnaatid ayay ku jeclaanayaan Soomaalina hore waxay u tiri ninka wax haysta wax loogu daraa marka adiga markaad adiga meel iska soo saartid isku kalsoon tahay baa adiga dadka ay kugu kalsoonaan karaan fahmaysaa marka dhiirigelintan waa dhiirigelinna wada anficayso aniga iyo idinkaba sababtoo anigana wadooyin badan baan leeyahay iyo hamiyaal badan baan leeyahay waxaan jeclaa inaan hamiyaashiida ka rumeeyo idinkana sidoo kale waan rajeynayaa in ilaahay hamigiina nii rumeeyo wax kastoo aad rajeynaysiin ilaahay nii fududeeyo haddii ilaahay cimri caafimaad nasiibo wax walba waa gaari kartaa waana qabsan kartaa ma fahmaysaa wax kastoo ilaahay raali ka yahay waay aniga kulama talinayo waxa ilaahay raali ka eedna sameeysid ma fahmaysaa so marka muhiimadu waxa waaye inaad mar walba adiga isku kalsoonaatid noqotid qof meel iska soo saaro dadkana dhig aadan u dhigin waxa ay ku dhahayaan hadaa ka fikirtid dadku waxay ku dhahayaan waxay noqonaysaa ina adiga hooshi aawadatay ee dhax kaaga kala goodo ma fahmaysaa marka wiliga qofkaas muxuu iga aaminsan yahay waxba ha ku fakarin wuxuu ka aaminsanaan yahay ha ka aaminsanaa sababtoo bili aadan qof qanci kara malaha ma fahmaysaa social media marka ku jirtidna waa waalibo soo marka maadaama qof kasta aadan qanci karin marka waxaa muhiim ah inaad adiga nafsadaada qancisid waxa aad hab ku tahay aad samaysid insha Allah kulligiin saasaan igula talinayaa asxaabta intaasaan ku ekeysiinayaa video dhiirigelina waa dhalinta dhan oo qusaya anigana way anfacaya dabcan waana ku dhaqmooya soo marka videoga halkaas rabaa inaan ku ekeysiiyo waxaan leeyahay videoga share gareeya comment ra'yigiina ka dhiibto insha Allah waxaan leeyahay videogiis kale inta ku kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.